السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتي شرفت له وأنا دين سلامي سلام كدي بخياري waan kusoo laabtay waxaan sii dhamaystiri doonaa cashirkeenii labaad ama qaybtii labaad ee web designingkii aan sii wadnay. Okay, website-ka markii noogu dambeysay wuxuu noo maraayay halkan. Okay, wuxuu noo maraayay halkan uu noo maraayay. Okay, website-ka halkan uu maraayay. Means waxaan sameynay web designing magacii website-ka, sidoo kale meeshii linkyaashii lagu xiri lahaa, iyo sidoo kale backgroundgii, iyo sidoo kale waxaan sameynay wax loo yaqaano wax ku saabsan website-ka iyo paragraphyo, iyo waxaan soo gelinay video, iyo waxaan soo gelinay footerkii iyo xuquuqda website-ka qofka iska leh. Okay, company iska leh website-ka xuquuqdiisa ama company-ga aasaasay ama diyaariyay website-kan. Okay, marka waxaan leenahay waxaan rabaa halka marka hadda waxaan rabaa inaan style u sameeyo. It means hadda waxa farta waxyaalaha dhan isku toosna way kala ahlaysan yihiin. Si aan iskugu toosiyo waxaan u baahanahay file la dhahay style inaan sameeyo. Si aan u sameeyo folder aan sameeyay kan iga tirtir. Folderkaas aan sameeyay oo CSS ah waxaan soo gelin doonaa wax loo yaqaan style. Kadib waxaan leeyahay new file, kadib waxaan leeyahay control S ama save, kadib CSS aan fura oo website-kii test website ku dhex jiray folder ah. Kadib waxaan qori doonaa wax loo yaqaan style. Style markaan qoro waxaan raacsinaa .css. It means CSS kan waa style ama an extension loogu talagalay style-ka in lagu sameeyo. CSS maada CSS line way jirtaa, laakiin hadda waxaan u qaadanaynaa inaan isku xirno labadooda. kadib waxaan leeyahay save. markaan save gareeyo style.css waxaan leeyahay marka meeshaan si style-ka iyo isku waafaqaan, say isku waafaqaan ay isku raacaan labadooda, waxaan sameynaa meeshaan oo halkan ah waxaan ku qoraa wax loo yaqaano link. linkigaasoo noqon doono style sheet. relationka wuxuu noqon doonaa rel, waxaa laga soo gaabiyey relationkaasoo ah style sheet. sidoo kale typekiisuna waa text css. sidoo kale meesha waxaa ku qormaya marka href waxaa laga wadaa meeshuu kaga qormi lahaa style-ka. tusaale style-ka wuxuu ku jiraa folder la dhahayo css, sidoo kale slash aad leedahay magaca style-ka ama program file-ka ku qorna wuxuu ahaa style, extensionkiisana wuxuu ahaa .css. kadib waxaan leeyahay save ama file tag. marka file tagtid waxaad leedahay save. okay, markaa meeshaa maraysid hadda waxaad samaysay waxaa isku xirtay style-kii iyo html file-kii. okay, si aan u ogaado inuu isku xiran yahay waxaan sameynaa waxaan leeyahay html. it means html-ka gebigiisaba background-giisa waxaad ka dhigtaa background color-kiisa waxaad ka dhigtaa black. okay, markaan black ka dhigo background color-kiisa oo aan u diro refresh waxaa dhacay isbedel. it means background-iga oo idil wuxuu noqday wada black. okay, si farta loo arko ama farta qaabkeeda loo arko waxaan sameynayaa h1 aan leeyahay. markaan h1 dhaho h1 oo kana fiiri h1 aan isla aragno waxay tahay h1 waxaa ku qoran waxa loo yaqaano web designing. waa kan h1 waxaa ku qoran web designing. web designing kan ma u jeedin, laakiin hadda style-ka markaan ku qoro h1 waxaan arki doonaa qaabka ay isku bedelayso farta. waxaan leeyahay h1 qaabkeeda ha noqoto h1 qaabkeeda waxay noqonaysaa h1 qaybkeeda waxay noqonaysaa inaan dhaho text align. marka text align-ka aan rabo waa center, inay noqoto center screen hadday noqoto waxay tagi doontaa farta centerka. sidoo kale paddingkeeda ha noqdo padding top topkeeda ha noqdo. it means padding top 20 pixel. it means farta ha ka soo sikato sadarka kor 20 pixel. sidoo kale text transformation qaabkay u qormaysana ha noqdo uppercase, far waaweyn ha noqoto. sidoo kale waxaan sameyn doonaa colorkeeda aan ka dhigi doono red. waxaan ka dhigaynaa colorkeeda red. waan save garaynana. kadib waxaan leenahay refresh. it means waxaa dhacaa aragna markaad
waa kan web designing centerkay joogtaa. sidoo kale texty qaabkeeduna waa web transformkeyga ama qaabka u qormana waa capital letter, xarfo waaweyn waaye, uppercase waaye. okay, uppercase waaye. okay, textiga waa uppercase aan ka dhignay. sidoo kale hadda waxaan samayn doonaa fartaan bedeli doonaa. farta hadda ay saaran tahay miyay cajibinin. farta si aan u bedelaa waxaan u baahanahay farta si aan u bedelaa haddaa rabtid waxaa samayn kartaa meeshaan ujeedaa waxaa ku qoraysaa font. markaa fonti halkan ku qorto computerkaaga fontiska ku jiro aad halkan ka baaraysaa. okay, fontiska aan u baahanahay tusaale ahaan haddaad nooca rabtid halkana ka arki kartaa. ciwaanka waxaan uga dhigi karnaa tusaale ahaan waxaan dooranaynaa far wanaagsan oo qurux badan. haddaan kan ka dhigi ka waran colonaan ka dhigi doonaa. noo yaray. okay, colona aawe colona ku raadi. okay, colona okay, colona waatan karubax. okay, midaan ama sug far qurux badanaa rabnaa oo style u noqon karta. okay, colonadaan ka dhigidaynaa. okay, farta waxaan ka dhigaynaa farta baadigaan ku qori doonaa. farta isbedelkeeda waxaan ku qori doonaa baadigaan sameynaynaa. kadib baadi markaan sameyno waxaan leenahay baadiga fonty family la dhahaa. fonty family farta nooceeda waxaa la dhahaa fonty family. fonty family markaan dhaho waxaan qoraa waxa loo yaqaano waxa meeshaas ku qoran oo ah colona mt. kadib baa soo xiraa. it means fonty family aan geliyey. okay, aan fiiriye marka programka aan refresh u diro wax isbedel ma dhicin. okay, waxaa laga yaabaa inuu stylekaas ku jirin ama active uu ahayn. okay, hadda aan arial ka dhigo. arial ka dhig kadibna save garee kadibna refresh u dir. okay, arial markaan ka dhigay isbedelka waa kan uu dhacay qaabkaanay noqotay. okay, sidoo kale far ku jir kan maxaa naga qaldan sukaan fiirino. waxaan leenahay colona mt regular. okay, markaan save gareeyo oo save aan dhaho oo aan ku laabto setup-ka program oo refresh aan dhaho yes regular aan ka tagnay. regular hadda waa kan waa qaab qorinka waa fiican yahay. okay, laakiin waxyar sizeka fonty sizeka aan bedelaynaa. fonty sizeka waxaan ka dhigi doonaa fonty size farta 1em. it means cabirka farta haleey cabirka farta waxaan ka dhigaynaa 1em. kadib waxaan leenahay refresh. okay, sug ma save gareynaa uma leena. file tag kadib waxaad leedahay save kadib waxaad leedahay refresh. okay, 1em haddayba tahay se ila tahay. okay, sizeka aan ka dhigno tusaale 3em kadibna aan save gareyno kadibna refresh aan u dirno. okay, zaaid u weynaata ujeedaa. laakiin hadda sideeda ku dhaaf. waxaad ka dhigtaa tusaale ahaan 1.5em. markaan 1.5em ka dhigo oo aan refresh u diro it means hadda way weyn tahay farta web designing. okay, sidoo kale waxaan yareyn doonaa imageka. okay, line heightka horta sug waxaa ka horeeya intaan qorin inaan sameeyo line height. halaha farta ay ku fadhiisanayso heightkeeda 1.5 sidoo kale em ka dhigisna. kadib waxaad leedahay refresh. waxaad arki doontaa isbedelka dhaca. it means koray aaday heightkeeda waxyaro kor u baxay. okay, sidoo kale waxaan samayn doonaa inaan imageka yareyno. imageka meesha yaalo waan yareyn doonaa. waxaan leenahay image markaan ka hadleyno image markaan halkan ku qoreyno waxaan link kula sameyn rabnaa sawirka halkan yaala. sug aan ku tusiyo sawirka aawe waa kan. sawirka image sourciga inta yaalo waxaan ku sameyn doonaa linkigaas oo aan ku qori doono styleka. okay, styleka markaan saan dhaho waxaan leeyahay halkan waxaan ku qori doonaa inaan dhahnaa width of imageka widthkiisa balaca it means
balaca waxaa laga wadaa halahan uu ku fadhiyo image balaciisa waxaan ka dhigi doonaa boqolkiiba boqol. It means widthkan wuxuu ku shaqeyn doonaa computer walba shaashadiisa wuu ku shaqeyn doontaa qaabka uu shaashada u yahay uu u noqon doonaa. Okay, refresh and I'm save and ho file aan tagaa kadib waxaan leeyahay save kadib meeshaan aad u jeedaa waxaan leeyahay refresh. It means boqolkiiba boqol computer alaala computerkii loo geeyo uu ku shaqeyn doonaa. sidoo kale resolutionkiisa heightka waxaan ka dhigi doonaa 400 oo pixel 460 oo pixel. okay, heightka waxaan ka dhignay 460 pixel. haddaad rabtid inaadan height qorin hadhow markaa computerka isticmaalaysid photoshop ahaan tusaale ahaan photoshopka waxaad furi doontaa inaad aadid new file kadib waxaad ka dhigan doontaa meeshaan 1200 ku daa dhib ma lahan 1200 markaa ku daashid inta waxaa ka dhigan doontaa 460 markaa samaynaysid heightka. laakiin hadda dhib ma lahan midkaan aan ka dhigi doonaa hadhow uma baahanaysid ba inaad qortid height. okay, heightka 460 aan ka dhigay kadib waxaan leeyahay save kadib waxaan leeyahay refresh control s aan dhahay refresh. okay, hadda waxaan sameeyey widthka ama balac heightka oo ii sheeg programka ama backgroundiga oo uu isbedelay wuxuu noqday 460 pixel wuu soo sigtay wuxuu ka soo sigtay hoos. okay, sidoo kale meeshaan markaan maraayo okay ii yaray markaan meeshaan maraayo sidoo kale waxaa loo baahan yahay inaan sameeyo h2 inaan soo muujiyo h2 markaan soo muujinayo h2 intay ku jirtaa anaga arki doonno h2 waxaan leeyahay h2 sidoo kale h2geega wuxuu noqon doonaa inaan dhaho colorkiisa sidoo kale colorkii hore oo kale red markaan red dhaho sidoo kale waxaan qoraa waxaa loo yaqaanaa text transform qaabku u qormaayo hore aan usoo sheegnay waa uppercase. okay, sidoo kale laba xabo macquul ma ahan. okay, sidoo kale banding top waxaan kasoo sikinaa 10 pixel 20 pixel haddaan ka dhigo way badanaysa 10 pixel leh. okay, save dheh kadibna waxaad dhahaa refresh. okay, hadda waxaa sameysay about the website wax ku saabsan websiteka. okay, about the website meeshan ujeedaa about the website ay ku qoran tahay. okay, sidoo kale h2 waxaan siin doonaa ii sheeg far u gooni ah. si aan far u gooni ah u siino waxaan leenahay ama size yar aan u siino font sizeka halkaan waa ka yareen doonaa font sizekeyga 1 em ka dhig kadib waxaan leedahay save kadib waxaad leedahay refresh. okay, hadda waan bedelay sizeka waa yareeyey waxaan ku qoray 1 em aan ka dhigay 1 em. sidoo kale waxaan samayn doonaa inaan soo geliyo ishek waxaan soo gelinaa main inaan sameeyo stylekeyga inaan kusoo qoro main. okay, mainka meesha lagu qoraayo waa halkan difka uu ka bilaabanayo designka waa halkan difka uu ka bilaabanayo designka ama wuxuu noqon doonaa mainka waxaa lagu qori doonaa aboutka mainka waxaa lagu qori doonaa halkan aan fiirino mainka wuxuu ku qormaa halkan meeshaan mushida meeshaana waxaa ku qori doontaa difkana waxaa ku qori doontaa main. okay, main intaan dhihin id u qaadanamo id classa jir laakiin hadda waxaan isticmaalaa id. sidoo kale main aan dhahay waa save gareyna. okay, markaan save gareeyo oo aan refresh dhaho wax isbedel ma dhicin laakiin isbedelku wuxuu dhici doonaa markaan mainka sameeyo. halkana waxaan leeyahay hash waxaa loo isticmaalaa id markii class la joogana waxaa la isticmaalaa dot laakiin hadda waxaan isticmaalaa hash toos waxaan kusoo qoray meesha id waxaan leeyahay magacaan kusoo qoray oo ah main kadib waxaan furaa qoys waxaan qoyska. okay, meeshaan waxaan ku qoraa waxa loo yaqaano background color mainka background colorkiisa white ha noqdo. it means farta meesha ay ku qormayso wuxuu noqon doonaa white halkan oo mainka ah wuxuu noqon doonaa white. okay, whiteka okay, main meel khaldan maan ku qornay mise ma save gareyninba. okay, file leh control s leh sidoo kale inta tag isna waxaad leedahay file leh control s leh ama save leh kadib waxaad dhahdaa refresh. okay, waa isbedeshay farta waad ujeedaa qoraalka qaab qoraaleedka meeshii madoobeed waxay isku bedeshay cadaan meeshii madoobeed waxay isku bedeshay cadaan waxaa qaatay oo keliya mainkii
mainkii aa qaatay. Okay, mainka sidoo kale padding ama inuu kasoo sigto leftiga. Hadda fiiri farta waxay saaran tahay geeskan. Si aan inta uga soo sikiyo padding aan sameynaa padding waxa la dhahay paddingka aan sameynaa waxaan ku sameynaa mainka dhexdiisa. Okay, mainka dhexdiisa waxaan ku qoraa waxa la dhahayo padding inuu kasoo sigtaa 0 am waxa kasoo sikanin. sidoo kale 1 am kasoo siko leftiga. sidoo kale 1 am kasoo siko top. kadib waxaad leedahay safe. waa kaas minis wuu kasoo sigtay ujeedaa wuu soo sigtay. laakiin farta xoogahoo ma u eka way isku egyihiin labada far. si aan u kala bedelo labada far waxaan leeyahay baragraafkan tagi doonaa. baragraafkan halkan ku qoran maaha h2 halkan ku qoran waxaan siin doonaa id idgaasoo noqon doono tusaale ahaan font id font laan siin doonaa font 001 waxaa rabtaa siin kartaa id live font 001 aan siinaa ii copiyey fontigan. kadib waxaan rabaa mainka miyaa mise h2ga waa sax. okay, h2ga waxaan leeyahay meeshan halkan aan enter dhaha hoosaan usoo degaa. kadib intaan ku paste gareyna font 001 oo idgiisu yahay saas. laakiin waxaan ka hormarsiinaa marka hore hash aan ka hormarsiinaa. okay, markaan ka hormarsiiyo font waxaan leeyahay font family inaan ka bedelo waay noocan. waxaan ka dhigaa tusaale ahaan font familyga waxaan ka dhigaa far la fahmi karo. tusaale ahaan midaanaan ka dhigaa Franklin. waxaan ka dhigaa Franklin Gothic. waxaan leeyahay Franklin. okay, Franklin waxaan leeyahay Franklin Gothic book. okay, farta markaa saas ka dhigo aan save gareeyo aan ku laabto waxaan leeyahay refresh. adminis farta waa isbedeshay noocaana noqotay. okay, sidoo kale waxaan leeyahay okay, kan waa saxan yahay kan meeshaan ku egyahay. okay, markaan saas ka dhigo oo meeshaan aan maraayo sidoo kale waxaan bedeli doonaa farta baragraafyada ay ku qoran tahay. tusaale ahaan baragraafkan farta ku qoran asna waxaan siin doonaa id u gaara. waxaan leeyahay id background id waxaan siin doonaa font 002. sidoo kale kanaan soo koobiyeyna. markaan koobiyeeyo meel walba oo aad baragraaf ku aragto bilowgiisa ku dari doontaa ku darinta. laakiin waxaad qortaa waxa loo yaqaano id markaad qorto equal leh. okay, meeshaan kusoo xir. sidoo kale inta hoos usoo deg. okay, kan la soo koobiyey asdaalin copy leh. sidoo kale isna halkan ku shub. markaad meeshaan tagto enter sug ku shub inta paste. okay, xir kala sikin qoraalkan qaab qoraalka qaldama laakiin iyada wax ma ka dhibaayo. okay, sidoo kale inta tag space dheh ku shub isna save garee marka. okay, markaan save gareeyo wax isbedel ma dhici doono cause wuxuu isbedel u dhiceynin farta. hadda baragraafyadan si uu isbedel u dhaco waxaan sameyn doonaa styleka waxaan ku dari doonaa meesha styleka waxaan ku dari doonaa font 002. waxaan leenahay hoos usoo deg inta paste ku dheh font 002. meeshaan id aa kaaga qortay waxaad leedahay hashtag. marka hashtag dhahdo labadan ka saar. marka hashtagaas waxaa u taagan id ay u taagan tahay. okay, waxaan ka dhigi doonaa colorkeeda black ka dhig colorkeeda. sidoo kale fontiga qaabka uu qoran yahay font familyga waxaad ka dhigtaa tusaale ahaan Arial ka dhig. markaad Arial ka dhigto save garay kadib save dheg kadibna refresh u dir. okay, way isbedeshay farta waad ujeedaan qaabkay u qoran tahay. okay, laakiin farta xoogahoo waa bigger. ciwaanka iyo iyada waa isla fac yihiin.
si aan uu farta wax yar ugu yareeyo waxaan leeyahay font size cabirka farta waxaan ka dhigi doonaa tusaale ahaan oo 1 em ay taagtay laakiin hadda waxaan ka dhigi doonaa 0.8 em kadib waxaan leeyahay save control s ama save kadib waxaan leeyahay refresh okay farta way yareeraatay way isbedeshay farta okay hadda waxaan sameynay web designingkii ciwaankii ama programka website-kii magaciisii waxaan ka bedelnay fontiga qaabku ahaa font family aan siinay ama faran siinay fartaas aan siinay sidoo kale waxaan bedelnay tusaale ahaan waxaan bedelnay isheeg colorkeedii aan bedelnay waxaan ka dhignay white sidoo kale waxaan geynay center screen aan geynay sidoo kale waxaan kor u durqinay 20 pixel koraan waxaan u sikinay 20 pixel sidoo kale hoos soo deg image-ka halkan yaalo waan yareynay waxaan ka dhignay 100% inuu computer walba ku shaqeeyo widthkiisa sidoo kale height-kiisana waxaan ka dhignay 460 pixel sidoo kale hoosaan usoo degnay meeshii aan u naqaanay main-kii waxaan ka dhignay ciwaankii about the website waxaan ka dhignay color gaduuda sidoo kale paragraphyadii ku qornaan waxaan ka dhignay color black background waxaan siinay oo cadaan okay background cadaan ayaan siinay sidoo kale waxaan sameyn doonaa videogan inaan center ka dhigno videogan hadda size-kiisu wuu weyn yahay halaanu ku fadhiyaa si aan size-ka videoga u yareyno waxaan leenahay isna waxaan sameyn doonaa id gaar u aan siin doonaa videoga okay videoga aaway okay videoga halkan yaala waxaan siin doonaa id u gaar tusaale ahaan waxaan leenahay paragraphkan halkan waxaan siin doonaa paragraphka ku dhex jiraa sax waxaan leenahay id kadibna waxaan leenahay video kadib refresh aan leenahay okay markaan refresh ma dhaano aan programka meeshaas u marayo stylekaan tagi doonaa waxaan qori doonaa wax lahayo sidaan u ogeyn hash kadibna waxaan leenahay ciwaanka magacii uu ahaa video kadib waxaan sameyn doonaa waxaan dhihi doonaa videoga widthkiisa baliciisa waxaan ka dhigi doonaa baliciisa 400 ama waxaan ka dhigi doonaa 720 pixel 720 pixel sidoo kale height-kiisana waxaan ka dhigi doonaa 430 pixel kadib waxaan leenahay save marka refresh aan u dirno videoga uu weynaaday videoga meeshaan ka rabnay inuu yaraado waan weynaynay okay dib ma lahan kan diban ka xalin doonaa okay 720 meesha ka dhacday waxaad ka dhigi kartaa inaad dhahdaa tusaale ahaan 320 intana waxaad ka dhigtaa 120 pixel height-ka waxaad ka dhigtaa 120 pixel kadib save garee kadib refresh u dar okay 120 pixel okay videoga markii la daaro waa kaas laakiin widthka xoogahoo baliciisa zaa'ida dhib ma lahan waxaan sameynaynaa videogan waan ka bedelaynaa si aan hadhow u fahanno waxaan sameynaynaa videoga uu ku jiro tusaale ahaan waxaad tagtaa website test sidoo kale waxaad tagtaa css kan ma ahan waxaad tagtaa documents markaad documents tagto waxaad raadisaa meeshan website testiga halkan ku fur sawirada meesha ku jiraan waxaad kan ma ahan responsive website ama soho website test kadibna images kadib videoga kan meeqo ay aan fiirin horta properties deh kadib waxaan ogaanaynaa haluu yahay okay kan ma ahan midkaan fiiri test ay ku qoran tahay isna propertygiisa meeqo detail deh okay kanaan u baahanaa 600 kanaan soo koobiyeynaynaa waxaan leenahay copy markaan koobiyeyno
oo kana koobiyeyno website testigeena caadigan ku laaban doonaa sawiro kadib meeshaan ku jira video kan waan ka saari doonaa delete kan ku shub paste okay hadda waxaan ku soo shubay midkan testi ay ku qoran tahay okay meesha xarafka waxaan ka bedeli doonaa meeshaan qosol ay ku qoran tahay waxaan ka dhigi doonaa testi kadib waxaan leenahay refresh kadib kan uma baahanin marka kan ha isku shideeninba dib malaan isku shideenin sidoo kale meeshaan ID-ga aa siisay aaway paragraph ID-ga aa siisay xitaa ha isku shideenin paragraph ID-ga aa siisay xitaa ha isku shideenin kadibna save garee kadib marka waxaa sameynaya meeshaan markaa maraysid okay videoga isaa caadi isku bedelahayaba okay videoga waa kan oo yaraaday ujeeda okay marka videoga meeshaan markaan marayno waxaan siinaynaa videoga inaan ka dhigno centerka inaan ka dhigno si aan centerka uga dhigno waxaan sameynaynaa paragraphka oo kana waxaan leenahay ID paragraph ama paragraphka videoga ku dhex jiro waxaan leenahay align markaan dhaano alignkiisa wuxuu noqon doonaa center it means waa inuu yaalaa videoga dhexda center align center kadib refresh kadib waxaan leeyahay file kadib waxaan leeyahay save kadib waxaan leeyahay waxaan tagaa programkay kadib waxaan leeyahay refresh okay waa kan videoga wuxuu tagay centerka akhyaaray cashirkeena halkan uu ku eg yahay xiisada xigta waxaan sharxi doonaa inaan sameyno homeka ama meeshan aad u jeedaan tusaale ahaan inuu fido ujeeda inuu inta u fido it means kadibna uu noqon karo mid la dooran karo sidoo kale uu noqon karo mid linki leh si aan u sameyno waxaan sameyn doonaa cashirka xiga sidoo kale waxaan sameyn doonaa cashirka xiga insha Allah inaan copyrightkan aan centerka keenno intii cashirkaas iyo cashir lamid aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.